munaadarada dhex martay imaam shaafici raxmatullaahi calayhi iyo muctasilada haddaan wax ka taataabano imaam shaafici raxmatullaahi calayhi caalim min culamaai lmuslimiin ka mid ahaa buu raggii culimada ilaahay tabaaraka watacaala diinta tana ugu gagaaray ayuu ka mid ahaa khaasatan qarnigaa uu joogay imaam shaafici waxa badnayd muctasilada iyo ahlulkalaamka ayaa badnaa markaa waxaa dhex martay xoogaa munaadara baa dhex martay iyo niqaash waxa weeye ahlucilmigu ay dee samayn jireenoo markii horeba dhex mari jireen imaam shaafici oo ahlu sunna matalayay muctasilada xagga ahlu bidca ay nugu jirtaa ayuu markaa dhex maray imaam shaafici wuxuu ku yidhi hadalka maydi kaa bilaabi se waa la bilaabaa waxay ku yidhahdeen may annagaa bilaaben way bilaabeen waxay ku yidhaahdeen waxaad u sugteen hadday ahlu sunna tihidiin ilaahay waxaa u sugteen sifaat waxaa ka mid a sifaatka u sugteen gacmii saaqii waxaa ka mid a indhii waxaa ka mid a wejigii waxaa ka mid a gacmaha waxay yidhahdeen marka haddaa taa loo sugo ilaahay subxana watacaala taa loo sugo rabbi tabaaraka watacaala wuxuu nooga eekaanayaa bay yidhahdeen makhluuqii kale ilahayna wuxuu yidhi laysa ka midlihi shay isagoo kale shayna muu ahaanin saasuu rabbi qur-aankiisa ku leeyahy haddaynu u sugnana ilahay wuxuu nooga ekaanaya makhluuq leanna makhluuqa lagu yaqaanaa gacmiyo indhiyo weji rabbina haddaa intaa loo sugo makhluuqiba u ekaada isaguna waa khaaliqi waxay kale yidhahdeen imaam shaafici oo ahlu sunna mataliyay ku leeyihin waxaad sugteenaad tidhaahdeen qur-aanku makhluuq maaha waa kalaamu rabbi alcibaad ama kalaamu rabbi alcaalamiin haa buu yidhi waxay ku yidhahdeen haddaynu inaara waa kalaam annagu waxaan u aaminsanna waa makhluuq waayo ilaahay baa wuxuu yidhi innaa jacalnaahu qur'aanan carabiya jacalnaahu bimacnaahu khalaqnaahu way bay yidhahdeen waanu abuurnay qur-aankii isagoo carabiya jacalnaa bay ku fasireen bimacnaa khalaqnaa saasuu noqonaya waana saxo luuqadda carabeed waa ku imaadaa jacalnaa inay tahay khalaqna laakiin macaani kale yeelan doonta si imaam shaafici uga jawaabay raxmatullahi caleyh kadibna imaam shaafici ayaa la waraagay labada arrimood bay ka hadleen tii koowaad buu dul istaagay marka wuxuu kale waxaad tidhahdeen ilaahay wuxuu yidhi laysa ka midlihi shay baa usoo deliishateen inuu ilaahay oo khaaliqa makhluuqa lagu shabahayo haddaa loo sugo ilaahay gacmaha iyo indhaa iyo wejiga waxa marka imaam shaafici ku yidhi daliilkiinaasi waa istidlaalu naaqis daliil kala dhimo wey laakiin haddaad aayadda kamili laydaan dhammaystiri lahaydeen waxaa arki lahaydeen waxyaabo cajiib ah waxaad arki lahaydeen inuu ilaahay yahay miduu xaqla wax maqla waxna arka ilahay wuxuu yidhi laysa ka midlihi shay wahuwa asamiicu albasiir shayna isagoo kale ma ahaanin ilaahay haddana ilahay waxbuu arkaa waxbuu maqlaa yacni ilahay wuxuu u arkaa waxna uu maqlaa laakiin maqalkiisa iyo samcigiisa iyo araggiisa iyo maqalkiisuba kiinoo kale ma aha ee waa mid isagoo u cuntuma ilaahay tabaaraka watacaala waxaanu farac ka yahay sida sifaadka kale oo dhan sifaadka ilaahay waxay farac ka yihiin daatada ilaahay saa ogeed maadaamuu ilaahay wax arko waxna maqlay aayaddu bidaati aaya ay ku dhawaaqday wahuwa asamiicu albasiir yacni ilaahay luguna uu leeyahay lubtana uu leeyahay saaqana uu leeyahay wejigana uu leeyahay indhiina uu leeyahay laakiin intaasiba tiinoo kale ma ahee waa mid isaga u cuntanta daatadiisana farac ka horraacsan sawi ta kalaad tidhaahdeen buu leeyahay qur-aanku waa makhluuq ood usoo deliishateen innaa jacalnaahu qur'aanan carabiya jacalnaa bimacnaa waxa weeye sayarnaa bay ka dhiganta waayo macaani badan bay ku timaadaa sayarnaana way ku timaadaa khalaqnaa way ku timaadaa waayo ilaahay baa wuxuu yidhi isagoo nebi ibraahim ka hadlaya ayuu ilahay wuxuu yidhi waaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum alasfaliin fajacalnaahum ay sayarnaahum alasfaliin ayay ka dhigantay oo waxaad garanaysaanoo macluum ahaan caqligaagu xataa diidaynin inaan iyaga la abuurin kuwa kaydka la doonayay nebi ibraahim inaan la abuurin iyagoo asfaliina ee sayarnaa bay ka dhigantay haddaad ku fasirto waaraaduu bihi kaydan fajacalnaahum ay khalaqnaahum alasfaliin bay noqonaysa taasina xataa caqliga saliimka waa diiday markaas sayarnaa way noqotaa qur-aankana yacni waxay ka dhigantahay innaa jacalnaahu qur'aanan carabiya ay sayarnaahu qur'aanan carabiya saasay noqonaysaa buu yidhi waxay kale yidhaahdeen muctasiladu ku doodiyeen qur-aanku waa makhluuq waayo ilahay ba wuxuu yidhi allahu khaaliqu kulli shay qur-aankuna waa shay bay yidhahdeen shay kastana waa makhluuq imaamu shaafici wuxuu ugu jawaabay ilahay baa wuxuu yidhi qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaah nabi maxamed waxaad ku tidhahdaa shahaadada sheegay baa ka weyn ilaahay baa ka weyn saa ogeed shayga haddaa shay lagu magacaabo laazim ma aha inuu shaygan makhluuq yahay leanno ilaahayo khaaliq ah oo aan makhluuq ahayn ayaa shay lagu magacaaba saa ogeed haddaad tidhaahda shay kasta laabudda inuu makhluuq yahay ilaahayo khaaliqa shaye ma makhluuq ba subxaanahu watacaala may allahu khaaliqu kulli shay kasta isaga abuuray laakiin qur-aanku waa kalaamu rabbi alcibaad adilaana ka soo reebtay adilaana tusaysa inuu yahay kalaamu rabbi alcaalamiin midda kale imaam shaafici wuxuu ku yidhi ilahay ba wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kasta geerida way dhadhaminaysaa ilaahayna subxaanahu watacaala waxaanu garanaya inuu yahay alxayu alqayuum ka weligii jiraya weligii uu jiray uu jiraa waa uu jiraya weligii baaqi isagoo qura ahaanaya makhluuquna waa dhimanaya khaaliquna waa hadhaya
kullu nafsin daa'iqatu lmowt waxaa laga wadaa wixii makhluuquna waa dhiman khaaliquna uu hadhi saa wey marka waxay imaam shaafici kusoo gebagabeeyey waa ragow muctasiladii iyo ragga ahlukalaamka ahaa wixii waad aragtaana alrujuuc ila alxaqi fadiila wey mar qofku xaqu u cadaado man tabayana lahu alxaqu waxaaba canhu khaaba wakhasir qofku isagu xaqu intuu u cadaado amba rag iska eegaya amba aan ikhlaas darro iyo kibir iyo santaag iyo istusnimo uga taga xaqii uu arkay inuu cad yahay qofkaasi aakhiro uu khasaaraya adduunna uu khasaaraya wallahu almustacaan وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم